وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. السلام عليكم. maxay noqon kartaa cadaawada ay u hayso faransa islaamka? muxuu kaga mutaystay islaamku inay aflagaadiso nebigeenna naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ama ay ku soo dusho dhulka islaamka sida dhigeeda gaalada ah? waxaynu odhan karnaa ama aynu ku adkaysanaynaa in aanu islaamku faransa wanaag mooye imaan gaadhsiin. waxa uu islaamku faransiiska ka badbaadiyey in la gumaysto. waxaynu u dirnay ka islaam ahaan ciidamo kuwa ugu xoogganaa oo hoggaamiye u ahaa khayrudiin barbaruusa. faransiisku waxa uu noqday micyaarka ama meesha mintiga lagu cabbiro muslimiinta samankan. balcaaya nebigooda, aflagaadeeya, culimmadooda xirxidha. miyay ka hadleen? miyay mudaharaadeen? maqaar bay soo biimeeyey. weli way joogtaa ruuxdoodii diimeed iyo kacaankooda islaam. waxaa kuu caddaynaysaa inuu faransiisku yahay miishar mintiga imise jeer ayayna tijaabisay ina qanjiidhisay. war ma soo jeedaan oo kale maraysa u fogan waxaa cayday nebigeenna. niman reer yaman ah ayaa u jawaabay. waxa ay maalgelisay ninkii nebinimada sheegtay ee puntland joogay. niman Soomaali ah ayaana kaafiyey. haddana waxay ahayd mar dhaweyd nebigeenna wixii mudaharaad ka dhacay way aragtay. suuqeedii ayaa qiirqiir galay. markii andalus ama isbaynka u taqaan la qabsanayey waxaa 3 jeer loo soo diray nin jaajuus ah. markii ugu horreysay waxa uu ka sheegay in kii ugu yara uu ku dadaalayo in aanu leebka la gafin bartamaha. waxa uuna ku taliyey in aan hadda lagu duulin. markii labaad waxa uu ka sheegay in ay kulligood wataan muslimiinta meeshaa joogayay kutub Bukhaari iyo Muslim ah. sidoo kale waxa uu ku taliyey inaan iminkana lagu duulin. markii saddexaad waxa uu ka sheegay in odayga ugu weyn uu la ooyayey in jacaylkii haddamaha islaantiisa waa jacaylkii uu wada sheekaysigu ka dhexeeyey ay u goysaa caawa. dabcan mar walba uu laabto waxaa muslimiinta lagu soo daynayey dumar qaqaawan, khamri cabitaan, sino, dhammaan xumaan oo dhan. waa sheeko aad badankiinu ka wada dhergsantihiin. waxa uu faransiisku sameeyey tijaabo ay tusoo itaabsi ah. waxa ay meel isugu keeneen 10 hablood oo muslim ah oo reer Jazaa'ir ah. waxay geystay iskuullada faransiiska ay dhigtaan waxayna u xidhay dharka faransiiska. sidoo kale waxaa la baray luuqadda faransiiska. waxaan uga dan leeyahay hablahaas waa la masaxay ama waa la maskax meelay ilaa ay wax walba ka shabaheen faransiiska, salaad la'aanta iyo sidoo kale diin la'aantaba. 12 sano kadib oo ay ku sugnaayeen xaaladdaas waxaa loo qabtay xaflad qaranjabin ballaaran. waxaa xafladda lagu soo casuumay madaxweynaha dalka sida mufakiriintii ugu waaweynaa iyo wasiiradii iyo saxaafaddii. faransiisku waxa uu rabaa inuu ku faano sida uu u beddelay maskaxdooda. markii la bilaabay xafladdii waxaa dhammaankeed isku noqotay soo gelidii hablihii iyaga oo wata dharkooda islaam, xijaaban oo asturan, kitaabka qur-aanka ahaana laabaha ku xambaarsan. waxaa la doonayay inay soo galaan habla qaqaawan. carabtu waxay ku mahmaahdaa kullu shayin yarjicu ilaa aslihi. wax waliba asalkiisa ayuu laabtaa. faransiiska meeshii uu ku ceeboobay. waxaa su'aal la weydiiyey faransiiska, maxaa idinka qabsoomay baa la yidhi. waxaad Jazaa'ir gumaysanayseen ku dhowaad 160 sano. waxaa jawaab la yaab leh ka bixiyey wasiirka gumeystaha ee faransiiska. waxa uu yidhi, maxaan samayn karaa hadduu qur-aanku ka awood weyn yahay faransiiska? Soomaalida waxay ku mahmaadaa god khiyaanaha qodin, dad qodidna ha dheerayn ku dhici doontaa mawgide. waxaan sheekadan u soo qaatay inaynu fahanno in aanay ummad kale habdhaqankeeda, fikirkeeda, mabaadi'deeda, caqiidadeeda jaangoyn karayn xitaa hadday gumaysato. waa xitaa hadday gumaysato. waan ogahay in la soo dhaafay mawduucan wakhtigiisii, laakiin waxaan uga dan leeyahay waan doonaya inaan ka hadlo mar kastoo aad diintaada ku dhegnaatid inuu kaa haybidaysanayo cadowgaagu. mahadsanidin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.